آمنة مرسل وزير هراء وزارة هوانك حكومة دي كميل جارك رئيس الوزراء وكاها علي محمد جدي هاتنا كم إذا سياسيين تكسو جيدا ديجانا مامولك كونفور قلبات صوماليا والله هذا الشيء إذا عد شبل مقالة مقدشو أيا شيكتي إن مدحوينها مامولك كونفور قلبات صوماليا وملاقيو قرشاه إن أن لا أنصحن وزير ذا عصب وصمق عبي شلي رئيس الوزراء حسن علي غير إسلام مركان ولك عشان أيو حلبان هذا برلمان كصوماليا ومتليا مامولكاسي آمنة مرسل وحا إتلمامتي إن لقى bay waqtigii jujuubka iyo dawladnimadiidnimada balse haatan loo kacay dib u dhiska dalka iyo ka qayb qaadashada gurmadka abaaraha waxaana ay sheegtay in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan uusan awood u lahayn qorshaha uu ku doonayo in uu ku cunaqabatayo xukuumadda cusub balse arintaasi ay u taalo baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ila tahay markuu Shariif Xasan wax maleegi jiray waa laga soo gudbay Shariif Xasan Soomaali way baratay baarlamaanka way baratay digil in darful lama taqaanaa maalintu ku adeegin jiray waa laga soo gudbay dad dhalinyaro ah dad xul ah dad sare inay wadankooda u shaqeeyaan annaga ma taqaanaa mooshin la keenay iyo baarlamaan iskaga hor imaaday intaas waa laga soo gudbay Soomaali waxay u wada istaagtay in oo ma taqaanaa ishag annaga oo dhan taqaan hal meel ka soo wada jeesano dib u dhiska wadanka aan galno abaaraha laga dagaalamo waxa ka codsanaya ma taqaanaa golaha oo sharafta leh oo isbedelkii oo taariikhiga ahaa muujiyay inay xukuumadda si degdeg ah ku ansixiyaan dibo Shariif Xasan istaagi karin ma laha Shariif Xasan ma taqaanaa karaamada wadanku ku lahaa isaga gacantiisa ku burburiyay dhanka kale Aamina Mursal wasiiradii hore ee wasaaradda haweenka ayaa soo hadal qaaday mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan waxaana ay fariin u dirtay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeer inay soo farageliyaan arintaasi mid kale waxaa fursad qaaliga waxaan kaga faa'iideysanayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya mudane Farmaajo iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha arinta inay faraha ay la soo galaan because ma taqaana baarlamaanka waxa loo soo sharci dejintii waay xaq wuxuu u leeyahay inuu madaxweynaha la xisaabtamo xaq wuxuu u leeyahay inuu ma taqaana isheeg wasiirada uu la xisaabtamo laakiin anaa iska laho ma taqaana baarlamaankeena boorsadan ku wato diyaaradda la saaraanaya ee xukuumadeedana diyaaradda la saaraanaya kii aniga aan rabana ma taqaana jinaya taas ka soconaysa ba Shariif Xasan waxyaabaha ummadaas ku hayo koonfur galbeed ninkaas ma taqaana wuu baasaday wuu duleystay marka waxa la rabaa ma taqaana dadkaas xukunkaas markii hore xalaal ugu soo dhisin ugu dambeyn wasiiradii hore ee wasaaradda haweenka Aamina Mursal ayaa ugu baaqday madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan inuu iscasilo maadaama ay sheegtay in dib u dhac dhan waliba uu galiyay deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxa ila hadboon arkaysa intaan lagu jiido waa ku jiidaynaa ilaahay waa ogyahay Soomaali weyn waa ogtahay waxaad yeelaysaa ma taqaana iscasil horena waa kugu sheegay caawina kugu soo cilaya annaga waa ka kaaftoonay cadaalad darro lagu abuurtay ummadeena isnaad ayaa dhex dhigtay dhaqaale xumaan lagu abuurtay deegaankeena ma taqaana wax business kama socda waxa ma taqaana nolosha dhan waxay noqotay boorsada Shariif Xasan markuu soo dhaafro ma taqaana halkaas maqaayadaha la xiraaya markuu laabtay ma taqaana shirmaadka yarka odayaasha u kala qaybinaya yaa ma taqaana maqaayadaha la furaa marka ma taqaana anaga waa daalnay waa ka dharagnay